السلام عليكم. halkani waa Grand Online Academy. magacaygu waa Dr. Maxamuud Maxamed waana macalinka bixiya maadada barashada daawooyinka ama pharmacology ee Grand Online Academy. casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay drugs for migraine headache, daawooyinka lagu daaweeyo madax xanuunka ama danjafka. madax xanuunka nooca loo yaqaano danjafka ee daawooyinka lagu daaweeyo ayuu ku saabsan yahay. marka waxa weeyaan danjafku waa nooc madax xanuunka kamid ah oo lagu garto calaamadaha madaxa qofka dhinaca ka xanuuna, yalaalugo, sidoo kale iyo iftiinka oo dhiba qofka oo marka iftiinku ku dhaco madax xanuun fara badan uu yeesho. inta badan waa madax xanuun dhinac ka xanuuna, waa unilateral. marka laga yimaado xanuun baabi'iyaasha caadiga ah paracetamol iyo sidoo kale dawooyinka kale non-steroidal anti-inflammatory drugs, waxaa jira dawooyin u gaar ah oo marka madax xanuunka yareeyo, waliba gaar ahaan xaaladda degdega ah ee qofka madaxu saayidka uu xanuunayo. marka dawooyinkaas waxaa loo yaqaanaa triptans kani waxa kamid ah dawada la yiraahdo sumatriptan, almotriptan and elatriptan ayaa kamid ah. marka triptan ayaa ugu wada dambeeya sida magacu inoo sheegayo. sidee u shaqeeyaan dawooyinkani? caadi ahaan normally migraine headache ama danjafka lama garanayo waxyaabaha keena, laakiin waxyaabaha la aaminsan waxaa kamid ah inuu xididadii maskaxdu ay ballaaranayaan. dawooyinkani waxay keenaan they are serotonin agonist, maadada serotonin receptorska ay ku dhigi jirtay bay qabsadaan, kadibna maxay keenaan vasoconstriction, inay isku soo yareeyaan intracranial nerves, neerfayaashii maskaxda ku yaalay, kadibna waxa weeyaan xanuunkii faraha badnaa oo qofka uu ka yaraado. waana dawooyin aad u fiican xaaladda degdega marka lagu daweynayo. side effects ka dawooyinkan leeyahay waxaa kamid ah chest pain, laabta qofka xanuunta, dawakhaad iyo tabcaan fara badan ayaabay keeni karaan. sidoo kale waa in dawooyinkan laga ilaaliyaa dadka dhiigkarka leh, maadaama ay kor u sii kicin karaan marka blood pressure-ka ama dhiigkarka. sidoo kale dadka wadna xanuunka leh, ischemic heart disease-ka dadka leh waa in laga taxadiraa. laakiin waxa weeyaan waxaa loo isticmaalaa acute migraine headache. marka casharkan oo faahfaahsan waxaad ka helaysaan fasalka dhexdiisa. waxaa socotay qorista kalaasyo cusub oo ah pharmacology-ga ama barashada dawada qaab online ah adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqo jooga. haddii aad xiiseynaysid la soo xiriir nambarada hoose. sidoo kale ha mogaanin inaad videoga sii baahisaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.